wasiirada iyo maamulka gobolka iyo degmada iyo dhammaan mas'uuliyiinta kaleeto ee shirka joogay sidoo kale waxgaradka kala duwan ee halka fadhiya ee isugu jira cuqaasha ganacsatada rag iyo haweenba ah qaybaheeda kala duwan dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa runtii sharaf noo ah inaan danaheenna meelo kala duwan uga wada hadalno si mas-uuliyadda guudeena wada saaran oo ah inaan bulshadeenna iyo dalkeenna u shaqayno aan wax uga qabanno dabcan guud ahaan dadku howl maalmeed kala duwan bay ku jiraan shacab iyo dowladba khaasatan inta mas-uuliyiinta ah maanta waa maalin ka mid ah shaqooyinkaas oo u baahan in si dhow aan uga wada hadalno hadba waxyaabaha markaas taagan in la fiiriyo baryahan dambe dabcan dhibaatooyin fara badan ayaa deegaanka iyo Puntland soo wajaha oo sababo kala duwan leh ilaahay mahadiis dhowrkii sano u dambeeyay dhibaato aad dadkeenna ugu soo badnaan jirtay waa laga jimcoon yahay oo xagga abaaraha ah saddexdii sano u dambeeyey ama labadii sano u dambeeyey abaartu ilaahay raxmaddiisu waan ka ladnay laakiin sidoo kaleeto dhinacyo kaleeto oo iyaguna masiibooyinka dabiiciga ah ayaa na haleelay hadday tahay daadad iyo hadday tahay duufaano iyo hadday tahay ayax intaba waxay ahaayeen masiibooyinka rabbaaniga ah ee muddooyinka u dambeeyeyna soo wajahayay waxaa kaloo jira dhibaatooyin kale oo aadanuhu sameeyo oo ay ugu daran tahay dhibaatooyinka dhinaca amniga ka dhasha waxaa intaa dheer dhibaatooyinka ka dhasha dhinaca mukhaadaraadka oo sii kordhaya waxaa jira dhibaatooyin kale oo sababa in bulshadu dhibaatooyin ay ka soo gaaraan oo dhaca ulajeedadeennu maaha maanta inaan waxyaabahaas oo dhan wax isaga sheegno maxaa yeelay waa isxasuusin idinkuna waa ogtihiin laakiin waxaan rabaa inaan wax yar dul maro arrimahaas na soo wajahay waad ogtihiin 2 sano ka hor roobabkii aadka u badnaa da-ay waxay saameyn ku yeesheen jidadkii oo ahaa halbowlaha dhaqaaleheen dowladdu iyada oo duruufo adag ku jirto waxaa dheeraa intaas oon ka tegay COVID-19 oo adduunka aan la qabno wixii lagula qabo iyadu waa gaar waxaan sheegayaa waxa gaarka noo ahaa iyadoo COVID-19 jiro duruuftu adag tahay haddana dowladdu waxay isku dayday inaan ishaas iyo kaabayaashaas dhaqaale halbowlaha ahaa in wixii laga qaban karo laga qabto oo inta laga qabtay hadda idinkuna waad ogtihiin inta kalena waa ay ku socotaa in jidadkii aysan isu socodkii uusan go-in weliba meelo meesha ka daran tahay xoogga la saaro marka hore waxaa lagu guulaystay waddooyinkii go-ay in si kumeel gaara loo buuxiyo kadibna in wixii hadda laga qaban kara laga qabto iyadoo duruufta dalka iyo tabartiisu mar walba la guurayo duufaanihii roobabkii badnaa iyagana ka dhacay qardho iyo gurmadkii bulshada reer Puntland u geysatay dowladba kuwii ka dhacay Gardafu kuwa hadda taagan ee gobolada bariga Xaafuun iyo inta ay weheliso ilaa Boosaaso marka Xaafuun laga bilaabo hoosteeda ilaa kor ilaa Boosaaso saameynta ku lahayd oo iyadana shaqooyin badan ay hadda ka socdaan oo rajeynayno bulshadaas in wixii la gaari karo la gaaro iyadoo dad badan xoolihii ay ku dhaafeen qabowgii badnaa iyo roobkii da-ayay kalluumaysato badanna ay ku cayrtoobeen oo qalabkii iyo awooddii ay lahaayeen ay halkaa ku baaba'deen arrimaha amniga alxamdulilah isbeddel badan baa ka jira waxaad ogtihiin magaalooyinka waaweynaa
oo dhaqaalaheenu ku tiirsanaa sida gaalkacay iyo boosaaso isbeddelka amni ee ka jira waad garan karaysaa garoowe ruuxaddeeda dhowr bilood ka hor dhibaatooyinka ka dhalin jiray amni darro kuwaas aan la mid nahayn laakiin iyada naftirkeeda amni darro u ahayd oo dhalinyaro fara badan iyo moobile furasho iyo dhibaatooyin hoose iyo waxyaabo aanan markaa horeba loo aqoon xataa dhacid iyo waxyaabahaas inay bilbilowdeen laakiin shaqooyin badan ayaa ka socda wax badanna waa lagu guulaystay waxna waa dhimayn waxaa aada u soo badanaya shilalka oo laba arrimoodba ay sababayaan jidadkii xumaaday qayb ka yihiin waxaa kaloo iyadana qayb ka ah oo aan waxba la qarinaynin dareewallada marka laga tago xirfad xumadooda waa iska jirtee draagiska maanta laba shilal baa saaka iyo xalay ka dhacay garow iyo gaalkacyo oo baabuur dad meel iska maraa iska jiiraysa kuwa iska socdo iska guddoomayo aan wax ku dhacaysa jirin dhibaatooyinkaas iyagana waa dhibaatooyin hor leh oo soo badanayo u baahan in isha lagu hayo oo dowladduna ay si dhow ula socoto tallaabo kasta oo ay dowladda qaado waxay ku qaadaa baahi jirta ayay ka jawaabtaa baahidaas oo ka dhalata bulshada dhexdeeda mid togan iyo mid tabanba mar walbana waxa ay go-aanada ku qaadataa maslaxada bulshada iyo danteedu siday tahay maxaa yeelay dowladdu iyadoo dalka dhan mas-uulka ah deganaanshihiisa iyo amnigiisa ayay haddana waxaa laga rabaa inay u adeegto bulshadeeda waliba inta jilicsan waxaa beryahan aada looga cabanayay dhinaca sarifka lacagaha oo kor u kacaya waxaan rabaa inaan intaan go-aanka qaadan dib u yaro noqdo maxaa sababay waxaad og tihiin dalkeennu dowladdii dhexe ee shilinka hadda aan isticmaalno abuurtay waxay burburtay 91 lacagta maanta kunka laga isticmaalo waxay lahaan jirtay 500 waxay lahaan jirtay 100 waxay lahaan jirtay 20 shilin waxay lahaan jirtay 10 shilin waxay lahaan jirtay 5 shilin waxay lahaan jirtay shilin waxay lahaan jirtay shilin iyo kumiyaal maanta waxaa la isticmaalaa waa kun keliya burburka lacagta Soomaaliya ku soo dhacaya 30 sano dal dowlad dhexe oo bangi dhexe oo maamulo aan lahayn inay jirto ayaa waxay ka mid tahay mucjisooyinka jira waxa intaa dheer in shilinku uu jiro oo kunku jiro abaalka u weyn haddii Soomaali abaal bixinayso oo intaa soo gaarsiiyay 30 sano waa Puntland dowladda Puntland meel dowladda ka jirto oo maamul ka jiro oo canshuur ku qaada ama dekadaheeda ama garoomadeeda ama mushahar ku bixisa Puntland horta ka jirta intaas 30 sano waxay ilaalinaysay lacagta shilin Soomaaliga ah iyadoo oonan si qaanuuni ah oo dowladda dhexe oo loo wada dhan yahay u imaan aan wax looga qaban inaysan dabar go'in haddana waxaan ka shaqaynaynaa shilinka Soomaaliga ah ilaa shilin kale oo looga guuro la isla ogol yahay inuusan ka bixin suuqa waa mas'uuliyad maamul maadaama meelaha kaleeto duruufihii ka jiray aan ka duruufo fiicnayn 30 sano la soo dhaaf oo meelaha kaleeto maamuladooda ay curdan yihiin marka loo fiiriyo Puntland marmar waxa la yiraahdaa 22 sano jirtay laakiin Puntland deegaankeeda maamulku 30 sano waa ka jiray magaca Puntland baa 22 sano jiree intii ka horeysana maamul iyo kala dambeyn iyo madax baa jirtay oo mar walba nidaam dawladeed ku shaqeynaysa nasiib darro wanaagaasi wuxuu bulshadeen u keenay dhibaato culus dhibaatadaas waxaa ka mid ah shilinkii Soomaaliga inuu xakameysmi waayo waxaa aad la isu weydiiyaa maxaa gobolada kale 23 iyo 22 ka dhigay
annagana 40 kun ka dhigay dollar su'aalu baahan isweydiin Soomaa meelaha kale intii laga soo raro in inta la keeno maxaa sababay arrimaha kan oo kale waxay u baahan yihiin arrimo cilmi ah waxaan u saarnay guddi darsa dhibaatada in la xakameeyo waxa kale oo dhibaato weyn dawladdu ka qabsatay hay-adda ugu muhiimsan ama shaqaalaha ugu muhiimsan ee dawladda Puntland leedahay waa ciidamada qalabka sida ahmiyadda koowaad ee dawladdan u jirto waxa weeye inay amniga ka shaqeyso ciidamadana ay maaragtay ay xoog saarto nasiib darrada u weyn oo dhacday waxa ka mid ahaa markii annaga aan xilka nimid dawladdu dollarka waxay ku qabsan jirtay markay dekada iyo meelaha ay ka shaqeynayso 28 kun 28 kun markay ku qabsato shaqaalaheedana waxay ku siin jirtay oo lacagta rayidka dollar ugu qiimeysan yahay 28 markii askariga 28 lagu siiyo suuqii wuxuu uga sarrifanayaa 34 waad garan kartaan inta ka dhumaysa waxa inta dheer noloshii oo dhan waxay isu bedeshay sahal qofkii wuxuu ku khasban yahay haddana inuu lacag intuu dollar u bedelo uu sahal ku rido si reerkiisii ugu diro oo meel ka fog joogo inta badan askarta maadaama hawl qaran ay ku jiraan iyaga iyo xaasaskooda ma wada joogaan inta badan waa dhif askari reerkiisa la nool si dabiici ah dhibaatadaas annagoo ka duulayna taladii ugu horreysay waxay noqotay war waxa suuqa uu ka maraayo annaguna aan ku qaadno iyagana aan ku siino si aysan u gelin hoos u dhac ugu dhicin dollarkii waxaan gaarsiinay 30 mar uu hoos buu soo dhacay 30 buu yiri 30 buu soo gaaray annagana 30 baan gaarsiinay markaan 30 gaarsiinay kor baa loo kacay oo 32 baan gaarsiinay kor baa u kacnay waa la sii wadaa mar allaaliya markaan annaga kor u qaadno niraano suuqa halal mid noqdo kor baa loo qaadaya marka waxa u baahan yaa kor u qaadaya inaan isweydiino horta aniga waxa aan igu warramayo ma aha khubaradu waxay keeneen ruuxadeeda ganacsataan ahaan jiro suuqa waa ka warqabay sidoo yahay meeshaan waxa la rabaa hal qodob in la fahmo oo dadka aad uga diimoon shilinka Soomaaligu inuu kor u kaco yuudan ugu jira waxaad ogtihiin ganacsatada waaweyn ee dalka wax soo dejisa xisaabaadkooda wax iibkooda macaamilkooda waa wada dollar hal shilin Soomaaliya ku jira alaabta dollar bay u qiimeysan tahay dollarna waa ku gadaa dumarada masaakiinta oo suuqa fadhiyay siiyaan shilinku hadduu dhaco ama kaco ama baabo iyagu horta saameeya inta badan iyaga ma saameeyo meesha ay wax ka raadinayaan maanta way dhageysanayaan fariintaasna ha maqlaan waxay wax ka raadinayaan inay dawladda ku siiyaan 35 suuqana iyaga uga sarriftaan 40 oo halkaas waxa uga soo baxaya 5 kun mararka qaarkood uu dollarku 30 ahaan jiray 36 bay siisanayaan 6 baa u soo baxaysa 2 falis baa u soo baxaya 2 falis ganacsatada waa fadhida waa inay shaqaanaane ninka raashinka ka shaqeeyo 100 kun oo kiis 200 kun oo kiis keenaya 2 falis lacag badan waay marna ma rabiyo in lacagta dollarka iyo shilinku isku mid noqdo haddii ganacsigiisa uu dollar ka dhigay haddii dadkii uu dollar ka siinayo inuu shilinka ka dhex faa'iido oo uu mar walba kor loo sii qaado horta waa ceeb bay ku tahay dadka ganacsatada ah waxa yaab leh maanta dadkii shilinka la macaamilayay oo suuqyada joogay Garowe Qardho Boosaaso Gaalkacyo way furan waana shaqeynaya ganacsatadii wax soo dejin jirtay ee aan macaamilka lahayn waxay dheer waa xiranahay noola soo celiyo lacagta boqolkiiba 30 boqolkiiba 30 inaan joojino waxaan ugu kalifnaa waa inay sharaxeen sideedaba ganacsiga baahi عرض وطلب باني فود بانو مالينا هنا فهميسان انجليز waxa lagu demand and supply markay baahi jirto
alaabtii baa la keenaya customerka u weyn ee shilinka isticmaala waxay noqotay dowladda Puntland waxaa dhacday dowladda Puntland mar allaale markii kor iyaguna u qaadaan lacagtii la soo raro in Puntland lagu soo xaabiyo waxaa maanta dalka ka jira intaan xogta ku helnay ilaa 4 mashiin makiinadooda lacagta daabaca dad baa dhaha lacagtan ma cusba ciid bay geliyaan si ay u duugowdo idinkuna waa taqaanaan ganacsada halka fadhiya waa ogyihiin waxaan u baahannahay dowladda Puntland shilin Soomaaliga inta iyada uga filan inay ku macaamisho aysan noqon sidii raashinkii wax loo soo xawlo laakiin ay noqoto lacagta baahideeda inay ku wareegto si dowladda baahida shilinka ay u xadido tallaabooyin bay qaadino dowladdu shilinkii marna kama guurin bangiga Puntland shilin waxaa ka buuxa shilin Soomaali ah dowladaha hoose way qaadayaan kastamada qaybtood waa lagu qaadi doonaa dowladdu mushaharooyin bay ku bixin doontaa macaamilkii dowladdu wuu soconaya laakiin waxaan rabnaa marka aan siino mushaharka qofka 30 suuqa hadduu doolar u baahdo inuu 30 ku heli karo si taa loo helo oo shilinka iyo sarifku uu noqdo wax xadidan dowladdu waa inay tallaabooyin qaadato tallaabooyinka ugu horreeya waxa weeye macaamilka faraha badan oo niman yar ay ka faa'iidayaan oo dekada ka socda horta waa inaan joojinaa labo lacagta sahalka isu bedeshay oo kaliftay qofkiiba inuu waxba qaadan waayo shilin Soomaali isticmaalo waa iyadan inaan xadidno dollar baan ku xadidnay haddii loo baahdo waa laga kordhin doonaa hadba sida ay ku timaado daraasada si macaamilku u socdo waxa kale oo inta u dheer dowladda hadda shilinkii qiimo la jaray laakiin xogta waxaan ku haynaa haddaad dollar wadatid waa lagu sarrifaya laakiin haddaad dollar u baahatid inaadan helin iyadana tallaabaan ka qaado bangiyada dowladda iyo bangiyada shirkadaha xawaaladaha inta halka fadhida way maqlaysaa wixii berri ka dambeeya waa inay furaan albaab oo sarrif la ah waa inay sarrifaan iyagu lacagta ninkii dollar haysta oo wax u sarrifo waaye bangiga dowladda ha tago berri wixii ka dambeeya waxaa iswaraysanayna nimanka ganacsatada oo sarriflayaasha ah iyo kuwa importers oo isku xirmay hadday moodaan inay dadkan afduub ku haysan doonaan annaga ka bixinayna kuwa raashinka soo dejiya hadday wax iska bedeli waayaan meelahay ka soo dejiyaan amba waa aqaana waa dadkan aan u dirayna waa la soo dejinaya iyagana laysamadana waa ka qaadayna dalkan wax u joogsanaya male dadka dantiisa ayaan ka shaqeynaa annaga nin ganacsado ah anugu ganacsadaan ahay shirkadaha ka shaqeeya laakiin iyadaa ugu hor xiraya hadday raaci weydo nidaamka dadka dantiisa ku jira maxaa yeelay mas-uuliyaddu iyo dantaada gaarka ah inay isku xirmaan lama rabo waxaa loo baahan yahay waxaa loo danaynayo waa bulshada waxaa loo danaynayo waa dalka waxaa loo danaynayo waa dhaqaalaha marka waxaan u baahannahay dadka masaakiinta ah oo intii waxaanan sheegayn lagu soo bixiyo la kicinayo oo mararka qaarkood in kaloo nadiif oo caadifada markay arkaan iska raacaya inay runta ogaadaan oo arrintu inay saas ahayn ogaadaan marka waxaan u baahannahay in caqligu shaqeeyo wixii aad u baratid haddii ay dowladdu waa koraysaa barti yaqaan noqon mayno shalan saa ahaan jiray la oran maayo waxaa la rabaa shalay waa shalay dalka hore uu u socdaa caqabad hadday timaado waa inaan ka gudubnaa laakiin waxaan u baahannahay inaan si wada jiro uga gudubno tallaabooyinkaas sababaha u qaadayno waxaa ugu muhiimsan in dhaqaalaha waddanku uusan ku dhicin meel khatar ah sababta doolarka aan u xakameynay waxaan is leenahay waxaa ku jira maslaxad waxaan rabnaa wiilasheenna shaqaalaha iyo ciidamada ah in ay waxaa socda hadda saad og tihiin ciidamadii mushaharooyinka waa loo kordhiyey waxaa hadda gacanta lagu hayaa shaqaalaha in lacagta loo kordhiyo lacagahaas kordhaya horta dadkay ka imaanayaan oo canshuurta bay ka imaanaysaa haddaan dadka dhaqaalahooda kor loo qaadin canshuur ma bixin karaan haddaan dadkaas canshuurtaas soo baxday shaqaalaha mushahar ku filan la siina noloshu ma hagaagayso dhaqaaluhuna ma kobcayo marka horta dowladdan waxyaabaha ay xoogga saarayso si nolosha magaaladu ay u noqoto nolol degan waa in qof walba
oo ku dhaqan deegaanada Puntland uu awood u heli karaa shaqada uu shaqaysto waxa uu ka helo inay u goyn karto nolosha iyo maciishada markaa jirta haddii shalay $50 lagu noolaan jiray oo ay 200 gaartay dawladdu waa in ay maciishada qofka waa bin aadan aalad maaha waa inay la gaartaa meesha hadda suuragalka ay lagu noolaan karo haddii la yiraahdo sidii Puntland loo aasaasay mushaharka shaqaalaha ee Puntland isma bedelin wax la aqbal karo miya ma isku mid baa 98kii nolosheedii iyo maanta mas'uuliyad darro halka ka dhalanaysa haddaan marka dhaqaalihii dawladdu ka shaqeynaysa aan lala fahmin oo mararka qaarkood in yar oo mararka qaarkood siyaabo kala duwan nolosha dhaqaalaha dalka ugu qabtay ee aid ka bixi weyso aan waxa la igu eedeeyaa fadlan ma qortid lacagtii la wareegi jirtay lagaama helo war haddii lacagtii la wareegi jirtay la helo wiilasha buurta saaran oo difaacay see la yeelaya marka mushaharooyinka dalka see dadkii jilicsanaa la yeelaya dawladdan waxa la rabaa dadka u shaqeeya inay ahmiyadda saarto haddii dadku nabad helaan kuwii fadlanta qaadan jirana khayr kala u furmaayo ilaa dalka shaqay helayaan noloshii waa isbedelaysa ma ogtahay waa in kalsooni lagu qabaa in dalka la manaafacadsado dawladii ma aha meel la manaafacadsado ee waa meel xuquuq dad ay samaysteen gudda laakiin waxa la manaafacadsada waa dalka iyo dhulka iyo ganacsigu hadduu noqdo mid ixtikaara oo dad kooban ay gacanta ku haynayaan isagana dhibaata ka imaanaysa marka waxyaabaha aan rabno inaan bedelno waxa weeye qof walba inuu awood u helo in uu helo shaqo xalaal ah oo suuragal ah noloshiisa iyo tan qoyska inuu ku maareeyo ninkii ilaahay khayr badan ka siinaayana hanti uu ku siiyo inta aan socono waa intaas hantida ilaahay qofka siiyey ma aha mid uu gaar u leeyahay hadduu hotel furo hadduu macdaar weyn furo waa wax bulshada haddana ugu adeegayo wareegga ama cycle-ka ganacsigu iyo dhaqaaluhu waa wax bulshadu ka wada faa'iido waa mid shaqeeya iyo mid loo shaqeeyo iyo mid manaafacadsada marka muhiimadda aan leenahay waxaan rabnaa in bulshadeenna aan ku wacyigelinno tallaabooyinka aan qaadayno waa kuwo aan ugu danaynayno haddii tallaabada aan qaadnay oon u aragnay inay dantu ku jirto aan gaari weyno waxba naguma aha inaan go-aankeenna ka noqonno oo meesha aan u aragno inay dantu jirto aan aadno laakiin ilaa iyo hadda daraasadaha aan samaynay waxaan ku kalsoonnahay waddada hadda aan ku wadno inay tahay waddo dhaqaalaha dalka iyo dadkaba dan u ah waxaan aada u rajaynayaa arrimo badan oo halka ku yaalla oo la darsay inaan hadda inay wada sheegno muhiimad maaha laakiin waxaan rajaynayaa inaad ku kalsoonaataan shilinka aada haysataan dawladdu waxay naga ilaalinaysaa shilimo meelo kale laga soo waariday oo la rabo doolarkiina iyo hantidiina in lagu dhaco laakiin kalsoonida kiina aad ku qabtaan waxaa damaanad ka ah dawladda shilin qof haysto inuu isticmaali waayo oo meeluu geeyo waayo dembigeeda annaga qaadanayna waxaan diyaar u nahay inta aad haysataan haddaad geysaan bangiga maanta door bay nagu bedeleen laakiin waxaan iga rabnaa in aad socodsiisaan si dadkii macaamilka la maxaa yeele dadkeena doolar ma wada yaqaano dadkeenu sahal ma wada haysto bulshadeena reer miyi bay u badan tahay tuulooyinkay jiraan waxaan u baahannahay waxay kari karaan oo ay qaadan karaan inay la macaamilaan falisyo iyo waxaas way dhib bay ku tahay marka waxaan u baahannahay shilinkii inuu socdo bulshadii ka dhex socdo meheradihii ay qaataan noloshii aan istaagin inuu hoos u dhaco oo maanta 35 bushal ah maanta 34 u marayo 30 tago dantiina ku jirto maxaa yeelay wax yar oo aad qaadi kartaan buu noqonaya haddii uu halkii dollar 100 kun noqdo xataa laba isticmaali karo hadda ma la isticmaali karo Soomaa lacag isku xirxiran baa wax la yiraahdo 1 milyan waa qaadaan idinkuna 1 milyan baa u sii bixisa gudaheeda wax ku jira mataqaana mid kasta waa ogtihiin oo dhowr xabba laga saaraa soo saas ma ya inay ma tirsan waa ma tirin kartaan waa lacag boloshay oo go'go'danina ma tirin karo waa isaga nasiibso 100 kun baa lagu siinayaa wax laga yaabaa 90 kun inaa wadid marka waxaas waxa lagu sii socon kara ma aha mas'uuliyad darraana ka tilmaamaysa waxaan fariin inta uga dirayaa ganacsatada importerska ah ee bakhaaradooda ay ka xiran yihiin magaalada Boosaaso maanta haddaysan galabta afarta furin wixii uga yimaado oo mas'uuliyad darro ah iyagaa mas'uuliyaddooda qaadi doona
waxa ay ula jeedaan anu waa garanayaayo dadkii ay beenta u akhrin jireen ma ah marka waxaan kula talinayaa inay awaamiirta dawladda kuwa ugu horeeyo fuliyo inay iyaga noqdaan waxaan rajaynayaa shilinkeenu inuu meel walba ka dhaqan galo in cadaga lagu gato shaaha lagu cabo basaska lagu raaco lagu qadeeyo uu noqdo macaamil dawladaha hoose ee Puntland oo dhan waxaan halka farayaa turbataariyada wasaaradda maaliyaddana aan ku wargelinayaa ciddii isticmaali weyda in tallaabo laga qaado isla markaas waxaan kaloo u sheegayaa gaadiidka dadweynaha iyo dadka mujtamaca la macaamila cid kasta oo shilin Soomaaliga diida waa dembi annagu shilin Soomaali baa la diiday maan orana waxaan idin lacagtii dekada lagu qaadi jiray ayaan boqolkiiba boqol ka dhigay wax kaloo nirimana ninkii isku dayay shilinka Soomaaliga inuu diido waa nin hanti dawladeed diiday xaq uma leh ninkii dollar awoodana dollar wax ku gadan kartid ma kuma gadan kartid ma oranayno maxaa yeelay dollarka dalkeenu boqol daraasadii annaga aan sameynay hadda wasaaradda qorsheynta sameysay boqolkiiba 91 bulshada Puntland iyo 89 labada number midkood daraasadu waxay sheegaysaa dadku wuxuu isticmaalaa dollar number aad u yar xataa baadiyaha tuulooyinka dadka jooga badankoodu sahalka way isticmaalaan bahalkii la wada baray daraasadaas waxay oranaysaa boqolkiiba 90 dadku doorbayso horta dalkan dollarization buu aad ceebna kuma aha 30 sano iska daa 30 sano ee 2 sano haday dawlad la'ayd oo lacagta cid maamusho la waayo waxay idin go'aan laga gaaro haday Puntland jiri lahayn waa shilinkan waa dhiman lahaa laakiin ma rabno ilaalintaas iyo wanaagaas aan u galayno hantidii Soomaaliyeed iyo shilinkii Soomaaliyeed in aan ku mutaysano in aan ku hanti beelno iyadana suuragal ma oo nin cid la joogo intuu bahal iska soo samaysto inuu wixii hantida qaato marka ganacsatada dhahaysa dekadii ha lagu celiyo boqolkiiba 30 aan faa'iidne war xoolihiina ka faa'iiday ganacsigiina shilin Soomaaliyeed oo dad masaakiin iyo dawladda ka faa'iidaya dhowrkii bari hadda xirneed maaga waa wasiir 150,000 oo dollar baa kordhay dakhliga dawladda dhowrkii bari hadda aan door ku qaadno oo iyagu qaadin jireen سام شهرين وبحرنا عدي دت كيبا variation كالعقدن إلا العقد مركان سوق هذا كنتم بليون بقى ما عند طال محلي هذا بنك الدولة قيمة هي كله في النوايا هاي مرة إلا أنا وح نوقف الديوان نقارنا وح عنكو هذا النوي هذا وح يدتك كوسينا دت كيبا خسارة هذا عندنا السوق أنتو كجوا كوسينا الدولة دي خسارة وميزانية دي أسلمس مركا ماشي وح كجرا رنتي وضد حق ورهبه هنتيدي يريد دولدي هنتيدا ير هيستay oo la daala dhacaysa amniga iyo shaqaalaheeda iyo danaha guud iyo waliba ay og yihiin jidadkii sameynaysa oo mashaariic horumarineed oo dawladdu ay qabanaysa la sameynayo oo ogtihiin bangiga dhexe dhismaha ka socda waa lacagihii fadlan taa run bay inii sheegay daarahan dhaadheer oo dhisay arkaysa shaqooyinka madaxtooyada ka socda shaqooyinka bangiga ka socda madaxweyne ku-xigeenka gurigiisa la dhisay waa lacagtii fadlan tahay marka in dalka lagu qurxiyo dhaqaalaha dalka iyo in dadka loo qaybiyo iyaguna meel kale la aado saasa danta ku jirta dadkeena waxa la rabaa dantiisa inay gartaan dawladuna waxa la rabaa dadka dantiisa inay ka shaqeyso annagu waxaan ka shaqeynayna waa dadka dantiisa waxaan rabaa ganacsatada xawaaladaha halka fadhiid inta ka joogto wasaaradda maaliyadda ayaa control doonta waxa la rabaa shirkad kasta in ay furto qayb ay ugu tala gashay sarifka lacagaha waxaan rajaynaynaa bangiga dhexe ayaa si joogta ah ula socon doona sarifka lacagaha oo joogtayn doona bangiyada dawladuna waxay birri wixii loo gaaro waxay sameyn doonaan sarif aka qofkii lacagaysa halkaas geeyo bal ninkii kabar meel ku haystay oo dadka mooday inuu xakameyn karana hal leys ah waxaan rabaa inta nadiifka ah ee sariflayaasha ah in ay raacaan talooyinka dadka danta u ah iyagana dantooda waa ilaalinayna waxaan diyaar u nahay markaan sarifka sheegayno siday u fakeraan baan u fikirno qabashada iyo bixinta inaan kala dibno way inay helaan ribix waa nooc ganacsiga ka mid ah laakiin waxaa la rabaa ribixaaga inuu noqdo ribix macquul ah oo la socon kara shaqada aad qabanaysa intay la egta
waxaanan marna aqbalaynin dadka dekeda boosasa la macaamili jiray alaabta soo dejin jiray inay dhahaan boqolkiiba 30 ha loola daayo wax aan ka aqbalayna ma maxaa yeelay xaq ba uma leh dollar bay isticmaalaan anna shilin iga qaad wax suuragelaysa ma noqonaysaa marka waxaan u baahannahay dadkeenna waxaan rabnaa shilinka dollarka iyo shilinku sarifkiisu sida loo jaangooyo inay isku mid u noqdaan oo inaad dollar wadato inaad shilin wadato aa kala garan weyn oo labada meeloo isugu mid tahay meesha aan u socono halkaas way laakiin haddaa markii shilin gacantaada aa ku dhigtid aa ka walwalaysa inay qiimihii kaa burburay iyada suuragal ma noqonayso marka waan rajaynaynaa inflationkaas habka aan ula dagaalamayno iyo sida aan u xakameynayno inaad nala fahamtaan bulshada intay naga maqan aada gaarsiisaan dalka aada socodsiisaan waxaan diyaar inay la nahay shaqo ganacsi weeye caqabadaha hadda aan loo jeedin hadday soo baxaan waxaan diyaar una nahay inaan mar walba inala fadhiisanno oo caqabadihiina xalinno laakiin inta hadda garashadeenna iyo aqoontii la dareysay ay tahay tallaabooyinka la qaaday tallaabooyinka dan shirkadaha isgaarsiinta waxaan ka rajaynayaa inay awaamiirtu u hoggaansamaan hadday joojin waayaan marka ay rabaan inay falisyadii sii wadaan oo la leeyahay $2 aan kuu dirayaaye 3 intaa ka goysatid 1.2 1.7 iisoo celi sheekadaas iyo bahal lagu sheegayo waafi hadday waxaas damcaan ogaadaa tallaabooyin kale aan qaadanaynaa annaga mariikha ma deginin dadkaan ku dhex jirnaa soo maha bulshadaa la noolna tallaabo kasta oo bulshada samaysa waa ka warqabnaa marka waxaa la rabaa waxa danta laga lahaa inaad fulisaan danta laga lahaa waxa weeye inuu qofku 100 kun jaab ku qaadan karo oo isticmaali karo haddaad taa ka joojin weeyaan sahal oo dhan inaa xirnaan aan qarku istaagin laakiin waxaan ognahay bulshadeennu inay dollarka u baahan tahay oo noloshooda dollar isu beddeshay sababahaas aynay ilaalinaynaa laakiin waxaan rabnaa marka qofka laysan la siiyo ogaada sharciga waxa la dhaho regulationka dowladda iskale haddii qofkii sharcigii iyo shaqadii gacanta ku wada qaato dee dalkan waa burburaya waxaa la rabaa qofka sharciga ka shaqeynaya xataa haddii dan gaara uu leeyahay markuu sharciga ka shaqeynayo inuu sharciga ku shaqeeya uusan isku khaldamin dantiisa gaarka ah iyo waxa danta caamka u ah dadka waxaan aada uga rajaynayaa dadka mararka qaarkood dadka saamaynta ku leh oo bulshada qeybaheeda kala duwan ah marka ay rabto inay bulshada la hadasho oo ay soo korodho wax bulshada ay dhibsanayso waxaan ka codsanaynaa oo dowladdu ay qaaday waxaan ka codsanaynaa intay dadka la hadlin inay dowladda hay-adda khusaysa intay la fadhiistaan inay horta u sharaxdo ogaadaan markay ogaadaan dadka ha la hadlaan laakiin waxaan u baahannahay mararka qaarkood dad baa dadka magaciisa ku hadlaayo oo bulshada saamayn ku leh oo mararka qaarkood waxay kala hadlayaan tallaabooyin dowladda ay qaaday iyago aragtidooda ay la tahay ama aqoonta ay markaas ka leeyihin la tahay inay khaldan tahay sideedaba waxaa la rabaa fas'aluu ahla dikr in kuntum laa taclamuun soo maahan sheekh waxaan u baahannahay marka dadka wixii ay yaqaanaan inay ka sheekeeyaan wixii aysan aqoon ceeb maaha inuu yidhahdo war waxa kan maxaa loo sameeyey markii loo sharxo uu kala doodo kii sameeyey xataa hadday khaldan tahay oo dood caqli iyo cilmiga la yimaado dee waxbuu ka bedeli karaa kan kalena sidoo kale laakiin waxaan rabnaa bulshadeenna waxaan u sheegayno mar walba inay ahaato waxa danta ay u tahay annaga tallaabo aan dadkeenna dan u hayn horena uma qaadin haddana qaadi mayno mana qaadi doono haddii ilaahay idinka dhigo laakiin sidaas ay tahay ma khaldamayno ma oranayno waxaa dhici karta go-aanno aan qaadanay oon u aragnay inay sax tahay inuu khaladaad ka yimaado hadduu khaladaad ka yimaado waxaan diyaar u nahay inaan saxno laakiin waxaan rajaynayaa bulshada iyo dowladdan hal mid bay ku badbaadi kartaa waa markay meel wada socdaan bulshada iyo dowladda horta bulshada iskale haddii dhaqanka waayadan dambe la fidinaayo dowladda iyo dadka laba laga kala dhigo sida dad badan dantooda ku jirto maxaa yeelay mar kastoo awaamiirta dowladda la wiiqo ama meelaha dowladnimada ka jirin waa meelaha shabaab ku badan yihiin iyo shayaadiintu maxaa yeelay iyagaa saas raba sooma maxaa gobollada koonfureed loo diidan yahay in dowladnimadu ka hena qaado dowlad kalaa ka dhisantay oo canshuurtii qaada oo dadkii baadaysa sooma dadka hadda dowlad diidka ah meeshay u gogol xaarayaan waxaa weeye
in dalkan dad jinniye ah ay gacanta ku dhigaan inta aan noolnahay taas kama yeelin haddii ilaahay ka dalkan dadkiisa ilaashan jiray waan ilaalinaynaa waxaan inaga rajaynayaa gobolka iyo degmadu ay maqlaysaan wasaaradda maaliyaddan waa maqlaysaa wasaaradda arrimaha gudahana waa maqli doontaa bulshada reer puntland meel kasta ay jirto waxaan rabaa in lala yeesho macaamil dhow baahida saxda ee jirta inaad soo gudbisaan waxaan ballan inaga qaadeenaa wax kasta oo dhab ah oo ina haysta oo karaankeenna inaan fulino annagoonan cidda uga helaysanin waxaan inaga codsanaynaa wax kasta oo aad markaad noo soo gudbisaan dan u aragno inaad nala qaadataan waxaan diyaar u nahay wixii markaas labada dhinac madmadow ku jiro inaan saacaddii aad noo baahataan sidaa hadda inagu nimid inaan meel kasta inagu nimaano inala fadhiisanno doodiina dhegaysanno doodayda aad dhegaysataan maxaa yeelay meel baa inaan wax wada wadnan rabno wax gaara ma wadano waxaan rabnaa inaan meel wax wada wadno waxaan rajaynayaa lacagtan sida aan u xakameynayno oo danta maslaxadda ku jirto waxaan rajaynayaa inaad gacan nagu siisaan inta diidan oo danaha yaryar ku qabtana aan meel uga soo wada joogno aad baa u mahadsantihiin su-aalihiinana diyaar baa u nahay